kulanti wacan u wanaagsan daawadayaal meel kasta daafaha dunida ka joogtaan halkani waa aragti media aa uga barateen wararka ugu xiisaha badan iyo caalamka iyo weliba dhacdooyinka ugu dambeey inaan idinku soo tebino haddaba maanta waxaanu idinku soo tebinaynaa warbixinteena ama ku falaqeyn doonaa ku egi doonaa 6 haween Soomaali ah oo lagu qabtay airportka dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi caasimadda dalkaasi kuwaasi oo watay boorsooyin lacag ah xilli Soomaali tiro badan lagu xidhay dalkaasi Mareykanka kuwaasoo lagu eedeynayay inay luusadeen lacag gaadhay 250 milyan oo dollarka Mareykanka kuwaasi inta badanna Soomaali kalena xabsiyada dalka Mareykanka la buux dhaafsheen haddaba kiiskaas iyo kiiskan halka ay iska shabahaan ayaanu warbixinteena ku lafaguri doonaa haatana kusoo dhawaada warbixinadeena oo faahfaahsan 6 haween Soomaali ah ayaa lagu qabtay airportka caasimadda Nairobi ee dalka Kenya kuwaasoo la sheegay in lacag aad u tiro badan ay soo gali rabeen dalka sidana maalmahanba aad kala socoteen warbaahinta waxaa jiray Soomaali lagu eedeeyay inay dalka Mareykanka ka dhaceen lacag gaadhaysa 250 milyan oo dollarka Mareykanka kuwaasoo hore FBI-da dalka Mareykanka u sheegeen in lacagtaasi loo diray dalalka Turkiga iyo weliba Kenya ayaa waxaa maanta dalka Kenya lacag qabatay ee ku dhow 1 milyan oo dollarka Mareykanka oo boorsooyin ay ku wateen haween Soomaaliyeed saraakiisha kastamka cashuuraha ee dalka Kenya ayaa sheegay in gegida caalamiga ah ee diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ay ku qabteen 6 haween Soomaali ah kuwaasoo sitay boorsooyin lagu soo cabeeyay lacag dollar ah kuwaasoo ku soo hoos qariyay dhar iyo kabo waxaana la sheegay inay kasoo safreen dalka Hindiya wararka ayaa intaasi ku dareeya in lacagta la helay kadib markii ay saraakiishu ay baadheen alaab ay siteen haweenka ay kuna jirtay kaba iyo dhar laguna soo qariyay lacagtaasi waxaana la sheegay in haweenkan isku dayeen inay dalka soo galiyaan lacag dhan 857 oo dollarka Mareykanka u dhiganta 106 milyan oo shilinka lana rumaysan yahay inay ka keeneen wadanka India dowladda Kenya ayaa sheegtay in eedeysanayaasha la qabtay xilli ay ka yimaadeen Hindiya iyagoona soo raacay diyaarad laga leeyahay dalkaasi Ethiopia kuwaasoo la sheegay in lacagta ay rabeen inay si qarsoodi ah inay ku soo geliyaan gudaha wadanka Kenya dowladda Kenya ayaa intaasi ku dartay in lacagta la qabtay la geeyay bakhaar waaxda kastamka si loo baadho lacagaha halka rasmiga ah ee loo waday iyo weliba halka ay ka timi xilligan lacagta la qabtay ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaan Soomaali badan ee dalka Mareykanka lagu eedeeyay inay dhaceen lacag taasoo loogu talagalay in lagu quudiyo carruurta iyo weliba dadka tabarta yar intuu socday xanuunka corona lacagtan oo ahayd lacag aad u tiro badan oo gaadhaysa 250 milyan oo dollarka Mareykanka haddaba Soomaali badan ayaa xabsiga Mareykanka loo taxaabay lacagahaasi oo la sheegay laguna eedeeyay inay dhaceen halka Soomaali kalena ay ka farxadeen dalka Mareykanka iyagoo iskaga cararay haddaba warar hoose aan ka helayno lacagtan la qabtay ayaa sheegaya inay tahay lacagtii dabagalka ay ku haysay laamaha FBI-da Mareykanka taasoo loo soo dhoofinayay Afrika oo si loogu soo geliyo dalka Kenya iyadoona horena laamaha FBI-da hore u sheegeen in lacagtii la dhacay gaar ahaan Minnesota lagu maalgashtay dalka Kenya markaasina ay Soomaalidii dhacday ay guryo kaga dhisteen dalkaasi Kenya maantana lagu qabtay lacagtaasi dhawaan ayay ahayd markii dowladda Mareykanka ay xabsiga u taxaabeen Soomaali gaadhaysa 50 qof oo kuwaasi oo lagu eedeeyay inay lunsadeen lacag gaadhaysa 250 milyan oo dollarka Mareykanka loogu talagalay in lagu quudiyo carruurta iyo weliba dadka tamarta yar xilligii uu socday xanuunka safmarka ee coronavirus waxaana weli socda baadhitaan iyo dabagal lagu hayo Soomaali badan oo qayb ka ahayd lacagtaasi kiiskan maanta Soomaalida lacagta lagu qabtay ayaa moodaa inuu qayb ka yahay lacagihii lagu dhacay dalkaasi Mareykanka dhanka kale dowladda Kenya weli warcad oo ama faahfaahin kama ay soo saarin lacagtan cidda rasmiga ah ee lahayd laakiin laamaha ammaanka Kenya ayaa sheegay in lacagtan laga keenay dalka Hindiya markaasna lagu qabtay 6 haween Soomaali ah lacagtan ku watay boorsooyin lagu soo qariyay isku soo wada duuba maahan markii u horeysay oo lagu qabto airportka Kenya ee magaalada Nairobi lacago lagu soo qariyay boorsooyin
bishii koowaad ee sanadkan ayay ahayd markii dhacdo tan oo kale la mid ah laga soo tabiyey garoonka Jomo Kenyatta oo xilligaasi lacag gaadhaysa 110 milyan oo shilinka Kenya lagu helay oo qof u dhashay dalka Bahrain. Sidii horeba ay FBI-da Mareykanka u sheegtay in Soomaali badan ay dhacday lacag isla markaana lagu maalgashay dalkaasi Kenya, ayaa waxaad moodaa lacagtani inay shabahdo lagu qabtay maanta dalkani Kenya. Taasi dhowaan ayay ahayd FBI-da Mareykanku markii ay shaacisay in lacagtii la dhacay lagu maalgashtay guryana lagaga dhistay dalkaasi Kenya weliba dalka Turkiga. Ayaa moodaa kiiskan inuu kiiskaasi shabaho, waxaana socda baaritaan aad u xoog badan oo ay FBI-da Mareykanku hayso, kuwaas oo ay dabagal ku sameynayso Soomaali tiro badan oo lagu toosan yahay inay qayb ka ahayd lacagtii 250 milyan ee dollarka Mareykanka lagu dhacay Minnesota, kuwaasi oo loogu talagalay in lagu quudiyo dadka danyarta iyo weliba carruurta xilligii socday xanuunka coronavirus. Waxaana jira Soomaali tiro badan oo gaadhaysa 50 qof oo loo taxaabay xabsiga dalka Mareykanka, kuwaas oo sugaya maxkamadda in la soo taago maalmaha soo socda.